بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. caawa waxaan halkan iskugu nimid ninkii walaalkii oo geeriyooday xasan kurtunow. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wa kullu nafsin daa'iqatu almawt. waxaan halkan fariin u diraynaa reerkii uu ka dhashay inuu ilaahay sabr iyo iimaan ka siiyo. waxaan kaloo aan u diraynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan ninka walaalkeen oo laga gardaranaa in ayagana sabr iyo iimaan dhammaanteen allaha naga siiyo. waxaan rabnaa inaan halkan ka caddayno sida akhbaartu ay nagu soo gaadhay. ninkaa wuxuu ahaa nin xabsi ku jira. qofka xabsi markuu ku jirana xuquuq buu leeyahay, mid islaami ah iyo mid xeer iyo dhaqan ah iyo mid caalamka oo dhan uu aqoonsan yahay. macnaheedu maaha qofka hadduu xabsi ku jiro inuu xuquuq lahayn. xuquuqdiisa waxaa ka mid ah marka uu xanuunsado in la daaweeyo, naftiisana la ilaaliyo, raashin ku filna la siiyo iyo waxa intaa ka badanba. waxaana mas-uulka ah cidda soo xirtay ee xabsiga joogta ayaga ka mas-uula intaas. akhbaartu waxay nagu soo gaartay ninkan in la xukumay oo xabsiga ku jiray ee xanuun kusoo kordhay. dakhtarkii xabsiga joogayna uu daaweyn waayey ee arrintu noqotay in loo baahday dakhtar kale in loo geeyo. dakhtarkaasna uu fasaxay, reerkii baa loo yeeray, dakhtar kalea loo geeyey. sidii baa lagu dadaalay in caafimaadkiisa bal dhinacaas la daaweeyo. asigoo cusbitaalka uu ku jiro ninkii xabsiga haystay jenaraal xirsiile uu soo baxay. ninkii wuxuu ka watay cusbitaalka, alaabihii ku rakibnaana wuu ka furay. tilaabadaas waxay ahayd mid khalad ah, islaamiyan, soomaalinimo iyo international lowba haddii loo fiiriyo qawaaniinta caalamka u degsan. waayo waxaa ku filneed in loo keeno 2 askari oo ilaalisa asigoo cusbitaalka ku jira. ninkii la daaweeyo ee dakhtarkiisu ay weydiistaan in ninkaa dib loogu celin kara xabsiga iyo in kale iyo haddii daawooyinka lagu baahan yahay. intaasba lama marin. ninkii xoog buu adeegsaday, gaari buu saartay, waa lala hadlay, waa loo sheegay. meeshaas waxaa ka muuqata jenaraal xirsi inuu xadgudub xagga sharciga uu sameeyey. ninkii markuu watayna xabsigu ku dhintay. marka annaga waxaan leenahay aska muslimiin iyo soomaalinimo waxaan ka codsanaynaa in jenaraal xirsi cadaaladdaas la hor keeno. sidoo kale in loo furo tababar dadka xabsiyada haysta xuquuqda ay ku leeyihiin dadka xiran. waxaana ka xumahay in dowladdii ayna ka hadlin, mas-uuliyiintii waddanka. waxaana aragnay dhibaato badan ee Soomaaliya ka dhaca. ilaa hadda dadka mas-uulka ah waddanka kama hadlaan. waxaad moodaa inuu yahay mooge. taana mas-uuliyaddu ma aha. arrintaas dhibaata ka imaan karta. waxaan rajaynaynaa in cadaalad la keeno, si degdeg ahna arrintan loo xaliyo.
والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا السلامي دتك دقيسن دونو سوماليين دتك إسلام كهول دقيسن أي لغة دم فهمي أنا كهلاي أنا كهلاي مدعي سعاد عيمد هرت آدم هو فرح سنة هاي عاوة إن لقى هلاي أرمى دلمتيته حق درأة أو كسو جارة دتك سوماليين دولك سومالي دولة سومالي أي كتلسون waxaan kaloo mahad celinayaa musukulo oo nasiib fursadan caawa looga hadlay arrimaha dulmiga ah weli waxna laga qabanin waxaan kaloo u mahad celinayaa gabdhaha walaalahay oo gadaasheeda fadhiya iyo maaragtay Sheekh Umar iyo wiilkan dhalinyarada dad ka soo qayb gala meeshaan siday toronto ugu baahantahay muhiim u tahay in arrimaha looga hadlo arrimahan oo kale intaas waxaan dhihi lahaa inta badan waxaa dhahay Sheekh Umar لكن يركا حسن ماركتي دبعتدو كسو غارتي مرحومكا او دنتي الله ان حريسته ماركتي حبسيga Soomaaliya بدوين inta u dhaxaysa cusbitaalka anaga waxaan u arkaa runtii generaalka cadaalad darro way jirtaa meeshii oo generaalka qaladaad badan uu sameeyay laakiin Sheekh Umar hadalkiisa aan ka soo dhaxqabanaya tababar in loo furo waay macnaheedu dadku haday aqoon u lahayn waxay sameeynayo dhibkeeda leedahay waxa kale oo jira oo aqoon darrada ka daran oo Soomaaliya jira oo ka dhex socda musuqmaasuqa dawlad la'aanta special Muqdisho thank you awood sheegashada waa isku soo duubkeeda waa dawladda haday dawladda waa maskaxdii dadka maamuleysay oo cadaalad kala siineysay oo dadka u kala xaq dhooreysay oo marxuumkaas Allah u naxariistay waxaan uga tacsiyeenayaa qoyskiisa iyo qoysaska kale iyo ummadda Soomaaliyeed asaga in ka sii badan oo aan loo hadlin oo maaragtay arrimaha iyo waxa soo gaar aan laga hadlinba intii dhimatay oo tacsiyeenayna waxaan jeclaan lahaa inaan noqono codka ummadda Soomaaliyeed ee aan codka lahayn oo aan loo hadlin Soomaaliya way ka gudubtay waqtigii qabiilka way ka gudubtay awood sheegasho way ka gudubtay iscaburin haddaan rabno inaan ku noqono intaasoo idil dadka waxaa la xasuusinayaa waxyaalihii la soo dhaafay Soomaalidu waxay soo dhaaftay waddo aad u xun oo waddada xasan maanta lagu maaragtay dhibaateeyay ama Allah u naxariistay marxuumka xaqdarrada loogu geystay in dhakhtarkii dhamaa xabsiga haystay oo yiri kuma hayn karo halkaan waa sharci adduunka ka jira haddii marxuumka lagu daaweyn waayo Allah u naxariistay xabsiga ku jiray inuu dhakhtarka u transfer gareeyo dhakhtarka weyn oo lagu daweynayo laakiin cadaalad darradaas dhacday ma sugi karnaa shacabka reer Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed adduunka oo dhan ku nool inaa maalin walba mid la dilo mid la dulmiyo mid la xirto mid la caburiyo mid meelaha laga cishto qof madaxa iyo qof maskiin iyo qof taajir iyo qof kale aysan dawladdu deynin masuul karna waa su'aal u taal ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aniga oo su'aalaha waa ka baxaya warkayga si degdeg ah Soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay cadaalad kala sarreeyna oo xuquuqda dadka ilaalisa generaalka ka bilow madaxda sare ka bilow dadka u taliya ka bilow dawladda madaxweynaha ka bilow meel aan madaxeeda tahay mijaheeda lama noqdaan yiri aniga waan taabanayaa waxa meesha ay ka qorunsan tahay dhibaatada waxa waa madaxweynaha waddanka haysta maba oga wax dhacooyaa yiri mooga ma aha waa og yahay oo ugu talagalay dadka inuu caburiyo inay iyaga isbaabiyaan reer Muqdisho xudunteeda ku duugan waa ku dhashay dadka waa jecelahay walaalahay ah meesha laga kaco cadaalad xasan iyo intii la midaba loo raadiyo waxaan leenahay hadaa reer tornanahay ma joojinayno saa u bilownay waa in la helaa cadaalad marxuumka dhintay kuwa hadda dhimanayo kuwa hadda ooynayo kuwa baaba'ooyo la ogeyn xasan waa la maqla kuwa la maqlan ka waran oo dad masaakiina ka dhashay oo aan awood lahayn oo aan haddi karin oo maaragtay caburunta isaga jira dadka masaakiinta xamaalatada lagu leeyahay oo baabuurta yaryar wato dadku ku qaadi lahaa waa laga wada joojiyay jidka waa laga xirtaa yiri maxaa reer Muqdisho isugaysaa markii jidka laga xirtay markii maaragtay masaakiintaada jeelka lagu dilay markii maaragtay cadaalad darro ay dhacday isnaar qabiil
iscaburin caburintana ma ay wataan qoys keliya waxaa wata rag isku tegay baarlamaan u sabciyey waxaasoo idil reer muqdisho maanta waxay u baahan in loo soo gurmado ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta oo ay joogto ha ku kala qaybsamin Facebook Twitterka iyo bahalka ka hadashaan iska joojiya cid kaliya ma aha waa in aan go'aan ka gaarnaa dadka baabi'inaya sumcadda magaca Soomaaliyeed ee taariikhda leh ee loo soo dhintay waxay ilmihiina meel walba ugu hagaasaya miskiinka aan cidna u hiilinaynin oo aan loo hadlayn daraadiis waa ka baxay salaamu calaykum meesha waxaan uga tacsiinaa xasan iyo faamilkiisa allah naxariista xasiyaare waxay sameynayaan diinta islaamka waa waxaan qabin qof xabsi ku jiro in lagala soo baxo oo dariiqana uu ku dhinto haddana qof life support ku jiro oo laga baxsanayo oo dhakhtarka dhahay waraha ka bixina se weligay ma arkin ilaahay ma laga baqo dowlad haddayna ka hadlin ilaahay horta ka hadlaayo ma fahamta qof kastoo bini aadan ahna wuxuu sameeyo wuu helaa waxaan ka xumahay laakiin waxaan aad uga xumahay dadka dadkooda gadanaya aad uga xumahay والله ما كبقدار عيالها قبطان فاميلها قبطان دادا قبطان بريك أركيسا وكاور ماني وحتى سمست موري كاور ماني سا أنا واحد شيء لايبو وحا وشيء هرو وشيء شو عمر يسوع عب فهمتي لكن وحا أدي أو معي دبك كذا عايم دشو الله وحريست حسن وحنا ربنا نكاس يوحي كدم بيبو قفك كدم بيسب إلى أو إلا هركين الشرعية oo lagu qaado hadaad istiraadaan waa ilooba wax ilooba male xasan waxa way qofka ugu horeeyo oo daacad helo inta ka dambaysan way helaysaa insha Allah والسلام عليكم هذا هو مغارنا الرياضة أو العلو مغاري محمد محمود علي برنامج حتى ما يبقى يدن حماق وفكاء الصومالية أو دباتيز انتلك الشيء هاي أو انتيوس لبكيوس مركز هديري أو الدالة أو انتيوس حلا أو ونرام ولا نتم فدينا نسبوا دريان مساسو هدي أو ترمي رباطي ولا سكين جيسدي انتيوس اللي نحرس دار نفوض ضاي تاسك وصدان